السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن داود يالسود دوادا halka aad naga daawanaysaan waa bartaan YouTube-ka ku leenahay aadan karaama fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato subscribe inoo saar si aad inoogu dhiirigeliso isla markaana riix gambaleelka cas si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aanu soo gelino halkan. maanta waxa uu muuqaalkeena ku saabsan yahay sheeko iyo qiso cajiiba oo ka cibro qaadasho mudan isla markaana aan u maleynayo in dad fara badan oo Soomaaliyeed ay wax badan ka faa'iideysan doonaan. waa Sheekh Saalax Macalin Cabdilaahi iyo sheekadii cajiibka ahayd ee aan idin kala dhex baxo. waxaa kaloo qiso lagu wariyay nin ayaa wuxuu lahaa ciyaal fara badan caruur buu lahaa waxbuu uu siiyo caruurtii waaye marka hadda ilmihii waxaad kula soo noqotay markuu waayo wax u geeyaba waaye iyo wuxuu damcay inuu iska cararo waxaad kula soo laabantay waxba u haynin carar buu yiri duurka u carar asagoo doona inuu iska cararayaa nin baa ka hor yimid markaas wuxuu yiri niyo waxaan rabaa inaad naftaada iga ijaarto shimbir baan doonayaa hal shimbir kaliya ii waraabi diinaar baan ku siinayaa anaa shilin ku siinaye kaala hal shimbir kaliya ii waraabi aad buu u farxay hadee shimbir waraabintii hadii diinaar lagu helay maxaad u malay wuu soo raacay marka uu yimid ceelkii buu tagay wadaantu u dhigay wuxuu yiri shimbirkaan uu ii dheerjay shilin baan ku siinayaa markaasuu ceelkii uu daldal ku bilaabay shimbirkii buu siinayaa 12 buu shubayay shimbirkii ma badhargayo war wax imtixaan oo shimbirka baas waa dhargeena muxuu ah ninkii daal waa noogay markaasaa kurba loo taagay hadda inuu shimbirku dhargo fulo moogina shilinkiina ma helay shimbirkiina waa soo taagayo ma dhargayo way marhaban uu caajisay markaa wuu fikiray maxaa sameeysaa buu marhaban ninkii baa la hadlo wuxuu yiri inni lastu bi basharin warartu bin aadan ma hiniyo wa inma ana malakum baanahay ba'athani illahu ilayk hay ilaahi baa iisoo ka diray li yurika inuu ku tusiyo sanacaka adiga awoodaada iyo tabaryaradaada inuu ku tusiyo ya ilaahi iigu soo ka diray waa tabaryaradaada fiiri haythu innaka lam taqdir an turwiya dayran waxaad awoodi weyday shimbir inaad dharjiso awood tabartaadi baa lagu tusayay fa kayfa taqdiru an turzaqa ciyalak shimbirka hadaad darjin weyday ma dadka farada badan oo guriga ku nool baa darjin kartaa waxaad adiga isu wax aad awoodi karin baad bal waxa leedahay waa la carari waa waxaad kari karin ba tabar baad u haynin way korkaagaba maaha maxay soo saaraysaa hay irjic noqo ilayhim fa inna allaha ta'ala huwa ar-raziqu lahum ilahi ba irzaaqaye fawada amrahu amarkiisa buu bandhigay fawada amrahu fawad amraka da amarkaaga bandhig iyo amrihim ilayhi ila allah ilahi u bandhigo rizqigana ilahi agtiisa ka sug ilahi baa ku irzaaqaye subhanahu wa ta'ala. waxaan rajaynayaa inaad sii share gareysaan muuqaalkan oo aad gaarsiisaan asxaabta kale isla markaana haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelkeena markaasi subscribe inoo saar gambaleelka casna riix. waa tahay daawadayaal intaas ayuu muuqaalku ku dhan yahay haatan intaynu muuqaalkan kan xiga ku kulmayno waa walaalkan aadan karaama kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.